Assalaamu calaykum. Marmarka qaar waxaad dareemaysaa inaad tahay qofka adduunka ugu nasiibka xun. Marka adigoo iska soconaya suulkaaga aad meel ku dhufato amaba taleefankaagu kaa lumo, iyo xitaa waxyaabo ka sii daran oo basiid ah. Laakiin taa beddelkeeda, waxaan muuqaalkan ku arki doonaa dadka ugu nasiibka badnaa ee ka badbaaday masiibooyinka hor yimi. Intaana muuqaalka bilaabin, isku day inaad kanaalka subscribe saarto si ay kuu soo gaadhaan muuqaalada cusub ee halkan soo gelino. Mahadsanid. Gurigii Talyaaniga. Qisadani waxay dhacday kadib markii qoys Talyaani ah ay go'aansadeen inay guri ka dhistaan waqooyiga Talyaaniga. Laakiin qoyskani ma aysan filayn in arrintani ku dhici doonto. Maalin maalmaha ka mid ah qoyskii waxay ku warheleen dhagax weyn oo ka soo dhacaya buurta kuna soo socda gurigooda. Qoyskii waxa qabsaday argagax iyagoo filayay inuu burburin doono gurigooda. Laakiin nasiib wanaag, dhagaxu si dhib yar ayuu u taabtay gurigooda. Kaliya wuxuu burburiyay xaydaabkii ku wareegsanaa guriga, waxaana uu ku istaagay beerta guriga. Laakiin masiibadu intaa kuma ekaan. Mar labaad ayaa dhagax kale ka soo dhacay buurta. Nasiib wanaagsi waxa uu istaagay markii uu guriga wax yar u soo jiray. Dhacdadii goolka. Maxaa dareemi lahayd haddii aad tahay goolaye kooxdaadana aad ka badbaadisay gool rigool ah oo ku soo wajahnaa, isla markiibana aad oroday si aad u dabaaldegto, laakiin aad ku wareeshay kubaddii oo dhex taalla shabaqa. Runtii tani waa waxa ku dhacay goolhayahan. Waxa uu shabaqiisa ka badbaadiyay kubad uu soo laagay mid ka mid ah ciyaartoydii ka soo horjeeday. Waxa uu isla markiibana bilaabay inuu ka dhaqaaqo dhinaca goolka si uu u dabaaldego, laakiin waxa dhacay arrin la yaab leh. Waxay kubaddii ku dhacday dhulka waxaana isla markiibana gashay goolka. Run ahaantii arrinkani goolayaa waxa uu ku noqday nasiib xumo. Haddaba waa kee qofkii nasiibka wanaagsanaa? Waxa nasiib wanaagsanaa ciyaaryahaankii kubadda laagay, laakiin laga qabtay, sidaas ayayna kooxdiisii kaga badbaaday khasaaraha. Shilkii diyaaradda. Julian Kubeki waxay ahayd gabadh ardayad ah, waxaana ay u dhalatay dalka Jarmalka. Julian waxay safar duulimaad oo dalxiis la gashay waalidiinteed. Intaa kadib waxa diyaaradii ay la socdeen gashay hawada xilli uusan jawigu wanaagsanayn. Waxay ahayd xilli ay daayeen roobab duufaano wata, waxaana ay diyaaraddu awood u yeelan weyday inay sii wado safarkeeda. Isla markaana waxay ku soo dhacday dhulka. Gebi ahaanbana way burburtay diyaaraddu. Laakiin Julian waxay ahayd shakhsiga kaliya ee ka badbaaday diyaaradda, waxaana ay ku soo dhacday keymaha mugdiga ee ku yaala dalka waxaana dhaawac ka soo gaadhay gacanteeda midig iyo isheeda midig. 9 cisho kadibna waxa la helay gabadhii iyadoo nool. Haruzen Ujedba Okene. Ninkani waa 29 jir ka soo jeeda dalka Nigeria. Waxa uu ka ahaa mid ka mid ah doonyaha badda. Maalin maalmaha ka mid ah waxa degtay doontii, waxaana uu muddo 3 cisho ku dhexanibnaa mid ka mid ah qolalka doonida, isagoo aan helin wax badbaada. Ugu dambeynna waxa yimid dad baadhaya meydadka dadkii ku qarqamay doonida, waxaana ay heleen Harrison oo nool. Edwin Robinson. Edwin waxa uu ahaa oday 62 jir ah. Sidoo kale waxa uu ahaa indhoole iyo dhagoole. Waxa ka maqnaa nimcadii aragga iyo nimcadii maqalka. Maalin maalmaha ka mid ah isagoo dhex wareegaya gurigiisa, waxa ku dhacay danab ama biriq, waxaana uu suuxsanaa muddo 20 daqiiqo ah. Intaa kadib waxa uu ku noqday qolkiisii. Haddaba maxay tahay nasiibka wanaagsan ee ninkani leeyahay? Waxaba ku dhacay danabe. Edwin markii uu qolkiisa seexday waxa uu soo toosay isagoo wax arki karaya waxna maqli karaya. Waxaana dhakhtarkiisu sheegay in Edwin danabka kaga badbaaday kabihiisa oo dhaadheeraa awgood. Ka waran haddii aad soo goosatid tigidh diyaaradeed adigoo qorsheynaya inaad qaadatid safar dalxiis ah, isla markaana aad ka baaqatay safarkii cudurdaar jira awgii. Cabaar kadibna waxa lagu sheegay war ah in diyaaradii aad ka baaqatay ay dhacday cidna aysan ka badbaadin. Haddana maalin kale ayaa waxaad go'aansatay inaad qaadato safar dalxiis ah adigoo qorsheynaya inaad ku safarto diyaarad. Waxaan haddana aad ka baaqatay safarkii adigoo cudur daaranaya, rajaynayana inaad marka xigta safri doontid. Laakiin haddana si leeg soo gaadho war sheegaya in diyaaradii aad ka baaqatay lagu waayay badweynta. Waan ogahay jawaabta maskaxdaada ku soo degdegaysa, oo waxaad leedahay ninkana nasiibkiisa ayaa xumaa. Laakiin ma sidaad malaynaysid. Ninkani waxa uu ahaa mid aad u nasiib badan, maadaama uu ka badbaaday 2 shil diyaaradeed. Baaskiilistani waxa uu sidaa kaga mid noqday dadka adduunka ugu nasiibka badan. Satomo Yamaguchi. Dhacdadan waxay dhacday intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka. Satomo waxa uu shaqaale ka shaqayn jiray shirkadda Mitsubishi Heavy Industries, waxaana shirkaddu ninkan u diri jirtay magaalooyinka dalka Japan. Waxaana uu safar ku marayay magaalada Hiroshima sanadkii 1945. Xilligaasna waxay ahayd markii Hiroshima lagu soo riday bamkii nukliyeerka ahaa. Nasiib wanaagsi Satomo uu ka badbaaday shilkaas, waxaana uu si dhaqso leh ugu noqday qoyskiisa oo deganaa magaalada Nagasaki. maalin kadib soo noqoshadii Satomo waxa magaalada Nagasaki ku dhacay bam labaad oo nuclear ah oo lagu soo riday dalka Japan laakiin arrinka la yaab kale waxa uu yahay markii Satomo mar labaad ka badbaaday nuclear-ka. Bill Morgan
sanadkii 1990kii Morgan waxa uu galay shil baabuur oo aad u xun kaasoo sababay in wadnihiisu istaago waxaana la sheegaa inuu dhintay muddo 14 daqiiqo ah waxaana ay dhakhaatiirtu awood u yeesheen inay soo nooleeyaan wadnihiisa si kastaba ha noqotee Morgan waxa uu kooma ku jiray muddo 12 maalmood ah dhakhaatiirtuna waxay qoyskiisa u sheegeen inuusan Morgan soo toosayn sidaa darteed waxay qoyskooda ka in laga jiro dib u nooleeyaasha laakiin qoyskiisu waxay ku qacan seedeen arrinka muddo 12 cisho kadibna Morgan waxa uu soo toosay isagoo caafimaad qaba inta kadib noloshiisa ayaa isbedeshay waxaana uu go'aansaday inuu ka tago shaqadiisii darawalnimo waxa uu saaxiibtiis ka codsaday inuu guursado waxaana uu isla waqtigaas Morgan go'aansaday inuu tijaabiyo nasiibkiisa waxaana maalmo kadib Morgan la soo wargeliyay inuu ku guuleystay gaari qiimihiisu gaarayo $17,000 Australian-ka maantana u dhiganta $23,000 laakiin nasiibkiisu halka kuma ekeyn Morgan waxa looga yeeray TV-ga si uu uga warbixiyo qaabkii uu ugu guuleystay nasiibka waxa uu ka codsaday inuu matalo goobtii uu ka xoqday kaarkii nasiibka cabaar kadib waxa soo baxday arrin la yaab leh maadaama uu Morgan markiisii labaad ku guuleystay nasiibka waxa uu markan ku guuleystay lacag gaadhaysa $250,000 ninkii ka badbaaday tareen iyo gaari xamuula ninkani waxa uu taagnaa wadada tareenka agteeda waxaana goobta mariyay gaari xamuula oo isna ka gudbay wadada tareenka waxa darawalka gaarigu u maleynayay inuusan wax tareen ay soo dhaweyn laakiin waxa dhacay arrin lama filaana waxa gaarigii ku yimid tareen waxaana uu ku tuuray jihadii ninku taagnaa laakiin nasiib wanaag waxa gaarigu uu kor uga yara kacay ninkii si mucjiso ah gabi ahaanbana ninkii uu ka badbaaday shilkaas waxa kaliya oo soo gaaray dhaawacyo fudud Faraday Silk waxa lagu sheegaa inuu yahay ninka ugu nasiibka xun adduunka iyo ninka ugu nasiibka wacan yacni ninkani waxa ku kulmay nasiib xumo iyo nasiib wanaag ninkani waxa uu ka badbaaday dhimasho muddo 7 jeer ah sanadkii 1962kii ninkan waxa tareenkii uu la socday uu leexday dhinaca webiga laakiin Faraday waxa uu ka badbaaday shilkaas waxaana uu ka jabay gacanta halka 17 rakaab ay dhinteen hal sano kadibna sanadkii 1963kii waxa uu mar kale ka badbaaday shil diyaaradeed kadib markii ay diyaaradii uu saarnaa dhulka ku soo dhacday waxaana uu si dhib yar ugu dhacay xayndaab cawsa iyadoo wax dhaawici soo gaarin halka diyaaradii dhacday ay dishay 19 qof 3 sano kadib shilkii diyaaradda waxa dhacay gaari xamuula oo la socday Faraday waxaana uu ku dhacay webiga waxaana ku qarqamay 4 rakaab halka Faraday dhaawacyo fudud soo gaareen 2 sano kadib Faraday isagoo wiilkiisa ku tababaraya isticmaalka hubka ayaa wiilkiisii rasaas kaga baxsatay aabihii waxaana ay Faraday rasaastu kaga dhacday xiniinyaha isla markiibana uu ka soo kabsaday dhaawacaas sanadii 1970 iyo 1973 waxa gubtay motorka gaarigiisa isagoo ku dhex jira waxaana uu ka badbaaday labada shil mar kale sanadkii 1995kii Faraday gaari bas ayaa dardaray uuna ka badbaaday shilkaas 2 sano kadib Faraday isagoo maraya mid kamid ah wadooyinka ayaa waxa ku soo baxay gaari xamuula waxaana uu damcay inuu leexiyo gaarigiisa laakiin nasiib xumo gaarigiisii ayaa kula dhacay webiga waxaana uu booday gaarigu 100 fuud oo hoosa laakiin Faraday waxa uu ka booday gaariga waxaana uu ku dhigay geedka ka baxay qarka webiga sanadkii 2003 Faraday waxa uu ku guuleystay baqtiya nasiibka dalka Croatia lacag gaadhaysa $1 milyan waxaana xilliga da'diisu gaadhaysay 73 sano